haddii uu hal habeen ku eg yahay iyo haddii uu kun habeen ku eg yahayba waxaad xirnaanaysaa anigu waxaan xirnaa 9 habeen baan saa u xirnaa waan bislaaday urka korkayga ka soo kacaya jirkayga macnaha osh laygu dhuftay xuduntayda iyo calooshayda way duleeleen macnaha marka xarkaan layga furaayay garbaha oo kale garabka waa lay soo qaadayay inta lay soo dhigay way suuxeen way tabarbeeleen kan kale waa la soo qaadayay inta la soo dhigay ajirada lay kor saaray tabar ma ayna jirin mararka qaarkood waxaan isdii jiray yow ama noqotay paralyze ama noqotay oo ayna shaqeyn doonin xubnahan never ever again amena shaqeyninba maxaan ku rahdaa waxyaabaha ugu daran oo jira waxay tahay qofka ibn aadanka waxa jiro si automatic xudunta iyo caloosha waxa jira wax yar oo xiriiriya oo laakiin isku dhow aad iskugu dhow hadii la cadaabiyona way isku furmaan meesha soo kale waxaan xasuustaa iskoolada afkeeda sida loogu huteynayay wala dhexda laga dhigay oo calooshii iyo xuduntii way isu duleeshameen ma fahmaysaa afka meeshan carabka ka hooseyso kale waa khaylinaysaa ibn aadan baad tahay dareen ilaahay wuxuu kugu abuuray maskixiyan ah oo haddii lugta lagaa qanjaruufto iyo haddii bartaa lagu qabto intaba halkan baa ka dareemaysaa maskaxda ka dareemaysaa barta ilkaha hoostooda iyo carabka waa khaylinaya mar walba cadaadis aad dareento xanuun aad dareento waa khaylinay waxaa lagu huteynayay iskooladii waxay koosgaraysay in carabka hoostiisa meesha biyaha ogxaanta biyaha ay ka yimaadaan candhuufta ay ka timaado inay ool go'do gaf inay dhahdo sideedana ay soo go'do oo meesha inay soo abuuranto uu ilaahay maxaan ku rahaa subxaanahu wa tacaala uu kasay ugu yaraan muddo 3 bilood kadib candhuufteedoo kale khareer bay ahayd 3 bilood dhanaan bay ahayd dhiigoo kale ahayd waxa meesha ka yimaanayay waxay ahaayeen because xididadii waxa keenayay oo ay biyaha ka soo maaxanayeen baa go'ay 3 bilood meesha ma aynan bigsoon ani ahaan muddo 2 bilooda jirkayga wuu wada gaduudnaayo wuu shiiray macnaha anigaan kula hadlayo oo jirkay leh aad dhibsanayo shiirkiisa macnaha ma fahmaysaa waa gartay marka however meesha wixii ka dhacay oo aniga ahaan igu dhacay waxaan aaminsanahay ma u malaynayo qof iga horeeyay iyo qof iga dambeeyay labadaba inay ku dhaceen ama ay ku dhici karaan ma aaminsan waa gartay marka maxamed caqabadihii ugu dhibka badnaa ee meesha aan kala kulmo horto my brother waa taasa maxaan ku rahdaa meeshu waqtiyadoo kaleeto dilkoo kale waxaa lagugu samaynayaa ma lagu soo bixinayo maalinka dadka markay joogaan ma lagu dilayo maalinka dadka markay joogaan shaqaalaha markay joogaan madaxda markay joogaan laguma taabanayo habeenkii baa lagu bixinayo xarunta aad ku xirneed ma xarunta godka jilco xaruntee baad ku xirneed accidentiga meeshuu ka dhacay waa jilcu haa ani 2 xarumood baan soo maray xarunta jilcu waa soo maray oo waa tan dhibku igu soo gaaray oo laygu jirdilay oo aan rafaadka badan kala kulmay